janaalka sahanwade waa janaalka dadweynaha Soomaaliyeed fadlan si aad uga mid noqoto asxaabtiisa ku soo biir oo taaba subscribe button waxaad halkan ka heli doontaa muuqaalo noloshaada wax badan ka bedeli doona aadna ku faa'iido doontid. Assalaamu calaykum waa idin salaamay walaalahayga ku xiran janaalka sahanwade. waxaa maalmahan indhaha caalamka qabsaday feerkii dhexmaray muslimka iyo gaalada waxaana guuleystay quwadii muslimka dhankiisa ka socotay waxaana shaashada caalamka haysta dabaaldega muslimiinta oo ah guuleystayaasha tartanka. feerka ayaa dhexmaray ninka lagu magacaabo Conor McGregor iyo geesigii muslimiinta Khabib Abdulmanab. haddii aan ka hadalno wax yar meeshuu ka soo jeedo, Khabib Abdulmanab asalkiisa wuxuu ka dhashay qoomiyadda Dagestani ee ah dadka laga tiro badan yahay ama waxay ku magacaabaan minority people ee daga koonfur galbeed waddanka Russia ama Ruushka sida u taqaanid. Khabib waa sunni muslim ah, wuxuu dhashay sanadku markuu ahaa September 20 1988. aabihiis waxaa la dhahaa Abdulmanab, sidoo kale aabihiis waa tababarihiisa qaaska kaasoo bara feertanka iyo taatikada dagaalka. Khabib wuxuu jeclaa ciyaaraha feertanka yaraantiisii. Khabib intuu ku jiray ciyaarahan weli lagama guuleysan. wuxuu qaatay shahaadada International Master Hand to Hand oo ah dagaalka gacanta. haddii aan intaas uga baxno taariikhda Khabib, waxaan guda galaynaa mawduuceena. ninka la yiraahdo McGregor wuxuu u dhashay dalka Ireland wuxuuna haystaa diinta Kaatooliga. McGregor ayaa aflagaadeeyay diinta Islaamka inta aysan bilaaban ciyaarta ka hor, wuxuuna ku hadlay hadallo aad u waxyeeleynaya qof walba oo muslina isagoo ku liidiyay diinta Islaamka iyo ninka ka soo horjeeda. balse Khabib uma jawaabin ee wuxuu mudankiisa ku marsiyay indhaha caalamka hortiisa. Khabib Abdulmanab ayaana ah geesiga Islaamka ee asbuucan kuna guuleystay ciyaartaas. Khabib ayaa yiri dadkii meesha joogay oo dhan waxay taageersanayeen Mark, balse ani Ilaahay ayaa ila jiray. waxaana guushii Khabib looga dabaaldegay Ruushka iyo dhammaan caalamka Islaamka intii muslina. sidoo kale laacibka caanka ah ee Cristiano Ronaldo ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay asagoo u hambalyeynaya geesiga Islaamka ee asbuucan. Khabib kaasoo meel saaray ninka diinta Islaamka wax ka sheegay, waxaana laga hadalhayaa caalamka asbuucan guushii ninkan muslimka ah. sidoo kale Khabib waa nin diintiisa ku adag kana yeelin qof diintiisa soo faragashta. sidoo kale Khabib waxaa dhiigga ku kiciyay ninkan oo caayay aabihiis iyo diinta Islaamka markuu feerka ka badiyay oo isdhiibay Mark ninka la yiraahdo. Khabib ayaa cantuuf u raaciyay tusayna Mark sharafta ay leedahay diinta Islaamka. ciyaartu markay dhammaatay kadib, Khabib waraysi uu bixiyay wuxuu yiri sidaan: guul walbo aan gaaro alle xaggiisa ayay ka timid. waxaan ahay qof alle u mahadceliya xilli walbo la joogo. ani diinteyda waa ii muhiim, waana midaan ku faano kuna faraxsanahay. Markna wuxuu ku xadgudbay diinteyda iyo waalidkay. Allahu akbar ayuuna sii raaciyay hadalkiisa. sidoo kale Khabib waxaa aqalka madaxtooyada Ruushka ku soo dhaweeyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin asagoo ugu hambaliyay guushii uu u soo hooyay waddankiisa. kadib asbuuc wanaagsan iyo guul aad u weyn ayay u ahayd Khabib Abdulmanab. intaas ayaa nooga soo diyaariyay barnaamijka feerka caalamka iyo asbuucii guusha diinta Islaamka. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin. fadlan subscribe garee channelka si aad ula socoto muuqaalada soo socdo, una share garee fiidiyogan asxaabtaada. nagu taageer subscribe. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.